احتفالka nabiga sallallahu alayhi wa sallam dhalashadiisa loo sameeynayo quraanka ayaan ka qaadanayna waa daliilka koobaad ee marjica ah u laabanayna waa quraanka kariimka quraanka ayaanu ka qaadanayna ihtifaalka nabiga sallallahu alayhi wa sallam ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku leeyahay قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل وحاتر هذا بفضل الله إلهي فضله سي ورحمته نحريستيسا فبذلك فليفرحوا مفسرين ويفسرين أيضا جلال الدين السيوطي أيا فسري كتاب كيسا الدرر المنثور وحليه فضل الله العلم ورحمته النبي صلى الله عليه وسلم كذلك سداسو كله وحا فسري واسغنا مفسر كوين كتاب كيسا يعني روح البيان آلوسي الإمام الآلوسي روح البيان كيسا وحكوليه والرحمة في هذه الآية هو النبي صلى الله عليه وسلم مركز اللبدو وحي ليهن ولقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لأن تفسير كمركي علماء كهذا ليان وحيليهن تفسير الوارد بالوارد وتفسير ككوباد أوه الرئي لقادنيو مركز آيادا معنى هذا دونيسو آيادا كلام معناها أي كتسينات كفستيسو أما حزيد كصحيحة معناها أو كتسينات كفستيرتو وتفسير ككوباد أوه الرئي تفسير الوارد بالوارد marka aayadan rahmada ku soo aroortay waxa inoo fasirayso aayada kale oo Ilaahay oo rasuulka ku sheegay sallallahu alayhi wa sallam inuu rahmad yahay wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin kadalika saaso kale Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu quraanka noogu leeyahay wa kullan naqsu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi faadak nabi muhammad sallallahu wa sallamuhu alayhi waxaan kaaga qisoonaynaa quraanka dhexdiisa waxaan qalbigaaga ku sugaynaa ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala hadii qisasul anbiya anbiyadii hore iyo ummadahoodii iyo wixii dhaxmaray iyo qisaskoodii haday qalbiga nabiga sallallahu wa sallamu alayhi wa khayru khalqillahi ay ilaahay ku adkeeyay tasbiid ay u noqoto annaga oo ummadiisi ah haddii nabiga calayhi salaatu wasalaam looga sheekeeyo oo qisadiisa iyo siiradiisa aanu dhageysano waxaanu helaynaa iimaan iyo yaqiin baan helaynaa walaalayaal taa daliilka labaad way haddii aan xagga sunnada u leexano rasuulka sallallahu alayhi wa sallam xadiidka imaamu muslim saxiixiisa ku warinayo waxa la weydiiyay nabiga calayhi salaatu wasalaam maxaad maalinka isniinta u soomaysaa النبي كجواب صلوات الله وسلامه عليه ذاك يوم ولدت فيه وانزل علي وحمالك اسنين تانو سوميو مالك اسنين تا ومالنتي لا يدلي وحيغنا لا يغو سو دجي ساسay waxay leeyihiin muhaddisiinta xadiidka imaam muslim ba saxiixiisa ku warinay waxay markaa leeyihiin muhaddisiintu markay xadiidka ka hadlayaan nabigu salawatullahi wa salaamuhu alayhi هو أول من احتفل بولادته صلى الله عليه وسلم دلشدي سقفوا احتفاله نبي أبو هري لأنه حكو جوابي محاد أسوميسا مركي ليد عبادة وين وصومك محاد أسومينيسا ومالك الله يدلي ساسا أسوميا ومعنى هذا محي شكرا لله سبحانه وتعالى إلهي بانكو شكرا مركان إسوء ما أنه أنصيرنا النبي كشيكينو نلو أغريه أن تعظيم كالنبي سيدو إلهي أويني فضائش إلهي ونبي سيئي معجزات كو إلهي كو أيدي سبحانه وتعالى محبتي سقيمة يفضل أيلادهاي وشكرا لله سبحانه وتعالى إيمان يقين بأنه زيادة نبينا أيام وينينا صلوات الله وسلامه عليه sidoo kale muslim iyo bukhari ba waxay warinayaan abdullah ibn abbas baa laga warinayaa wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu madiina yimid wuxuu u yimid yahuudi madiina deganayd oo ihtifaalayso yawm ashura soomayso yawm ashura
markaasuu nabigu weydiiyey maxaad u soomaysaan waxay yiraahdeen yoomkan waa yoom wanaagsan oo saalix ah waa yoomkii ilaahay uu badbaadiyay nabiyullaahi Muuse iyo muuminiintii fircawn ilaahay uu halaagay iyo jundigiis fanahnu nasumuhu shukran lillahi subhanahu wa ta'ala muxuu nabigu ku jawaabay salawaatullaahi wa salaamu alayhi nahnu ahaqu bi Musa minkum nabi Musa annaga idinkaga awleysan oo idinkaga xaqnimo badan fasaamahu wa amara bi siyamihi maalinkii nabiyullaahi Muuse ilaahay uu badbaadiyay darteed hadduu nabigu u soomay calayhi salaatu wasalaam oo cibaado lagu weyneeyay maalintii nabi maxamed uu dhashay ka waran salawaatullaahi wa salaamuhu calayhi maalinkaas ka weyn oo ka fadli badan waxay waa nasca sariixa oo meel laga mar lahayn oo ku tusinayo in loo ihtifaali karo dhalashada nabiga sallallahu alayhi wasallam al-imam ibn hajar al-asqalani wuxuu leeyahay labadan xadiis waa daliil iyo nascad oo ku tusinayo oo sariixa ihtifaalka loo sameeyo dhalashada nabiga sallallahu alayhi wasallam daliilka saddexaad waa ijmaaca ummaddu waxay ku ijmaaceen afarti madhabood iyo a'immadii islaamka ee mu'tabarka ah haday muhaddisiinta yihiin haday mufassiriinta yihiin haday fuqahada yihiin culamaa usiyar wa taariikh haday yihiin